بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شانكيني كفاية يقون 10 دين تحنا برشادة اكسل كا اما برشادة اكسل فورمولا ايو قيدوين كيسي حسابين تسا قيبتا حساباتك ما توحن سو برننا افر حرف ايان برننا مانتا افرتن فورمولو ايان برننا مانتا افرتن فورمولو حلاك لا يراهدا horta waxaan soo jeedinayaa anigu maxamed caliya xafladana haddii aad ku cusub tahay subscribe gare like and share commentigana wixii aad su'aal qabteed ama formula qabteed noogu soo dhig maanta casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay oo aan soo diyaar gareynay waxa weeyaan conta oo formulooyinka afarta formula soo diyaar gareyn conta iyo contin iyo full v lookup iyo h lookup kuwaas oo isticmaali kartid markaad sameynaysid project ama excel ka aad ku diyaar gareynaysid data ama xog ku fududeynaya habka sida data loo geliyo excel ka ama xisaabeedka markaad ku jirtid qaybta maanta diyaar gareynayna waxa weeye qaybta contiga waad soo dhigateen si loo xisaabinayo maxaa ku soo biirtay conta waxaan soo qaatay contiga sidii aad labada farqiga u dhaxeeya aad u barataan farqiga marka labada sida u dhaxeeya aad barataan ayaad kala ogaanaysaa waxa u dhaxeeya iyo ka aad u baahan tahay inaad ku xisaabsatid xogtaada amba xisaabtaada ku xisaabsatid excel ka qaybtan waxa weeyaan conta baa la yiraahdaa conta wuxuu kaga duwan yahay kan conta wuxuu xisaabinayaa selka markaad xisaabisid selkaas uu ku tirinaya inta gudaha gashay wuxuuna ku tirinayaa horta labaduba ma xisaabinayaan selka bannaan haddii halkaas u bannaan tahay marka qaybtaas price ku bannaan yahay kuma tirinayaan oo kuma xisaabinayaan labaduba kuma xisaabinayaan laakiin haddii uu xarfo ku jiraan waxa xisaabinaya kaliya ka marka qoraal ku jiro xarfo waxa xisaabinaya conta oo kaliya kan wuxuu ku xisaabinaya conti marka wuxuu kaliya wuxuu ku xisaabinaya conti wuxuu xisaabinaya soo kaliya numberka wixii ku jiro marka labada formulooyinka waan gelinayaa markaas aad ogaan doontaa farqiga u dhaxeeya iyagu walba marka ku raasaysanaysa kabacdina waxaad taabanaysaa conta way ku qorantay isku xigaan ayaad raacinaysaa kabacdina taab markaad qabatid ku furmanaya marka qaybtaas aan xisaabiyay inta meelood inta number ay ku jirta halka marayso timaadid waxaan sameynayaa interval sameynaya kaas wuxuu qoray 9 halkan aan haystaana waxa weeyaan 8 wuxuu ka boodo waa 10kii wuxuu ka booday qaybta maran buu ka booday markaad ka tamaran ma xisaabinayo kan kalena haddaan isna xisaabino waxa weeyaan equal isna conta weeyaan tab kabacdina si aad hore u soo baranay soo jeedisa kana marka soo jeediso toddobo keen sababtu toddobo keen waa maxay kolombadan ku niri xisaabi waa 1 ilaa 10 oo waa 10 ka mid 10 ka kolom bendoonina uu noo sheego inuu halkan 10 ku soo qoro waa maxay sababtu midna uu soo qoray 9 midna uu soo qoray 10 sababtu uu soo qoray midna 9 midna 10 waxay ku xiran tahay sababtu uu soo qoray midna 9 midna 10 waa waxa ay ku kala duwan yihiin oo dhan kan haddana imika ka masxo xarfaha haddana labadaba ka masxo oo aan labada soo masxo isku qiimo ay noqonayaan isku number bay noqonayaan sababtoo ah mid walba wuxuu xisaabsanayaa 7 number buu xisaabinayaa 7 number kan wuxuu kaga duwan yahay kan marka kan ma tirinayo xarfaha laakiin kan wuxuu tirinayaa haddii qoraal ku qoro answer ugu dambaysa qoraal ku qoro sida imika xa oo kaliya haddaan qoro halkan 8 uu ka dhigaya way xaadi buu i tirinayaa qaybtaasna uu ku daraya laakiin kan kale kuma tirinayo kan wuxuu tirinayaa kaliya ta numberada maran buu ku tirinayaa meesha number ku jirto buu ku tirinayaa meesha maran waxba ku jirin labadoo midna ma tirinayo laakiin midna wuxuu tirinayaa kan xisaab qoraalka numberada iyo xuruuftaba uu tirinayaa conta marka aad suraxsan tahay kanna conti kaliya wuxuu tirinayaa number kaliya taas ku duwan haddana mid kale si raaciyo g haddana qoro g-da kan uu tirinayaa 9 bii ku qoraya kan laakiin ma tirinayo 7 buu taagnaanayaa sidaas ku kala duwan yihiin labadooduba farqiga sida loo xisaabiyana waa sax haddii doon u baahan tahay inaad xisaabisid macla xarfihiisa macal wixiisa oo dhan marka laga reebo meesha maran cidna ma xisaabinayso labada midna ma xisaabinayo marka sax xisaabisid waxaad isticmaalaysaa conta haddii doon inaad xisaabisid number kaliya oo aan ku jirin xarfuhuna waxaad isticmaalaysaa conta saas laba kala isticmaalo formuladani kale ku xigta maanta waxa la yiraahdaa v lookup kaas oo ka caawinaysa markaad halka ID cardka ID numberka hore aad gelisid ayuu ku siinayaa natiijada ID-ga number intuu lahaa marka xogtaadu fara badan tahay oo kaliya adigoo isticmaalaya oo search gareynaya waxa soo fara badan xogtaadu wuxuu ku caawinayaa ku muhiim yahay marka xogta inventory-gaagu fara badan tahay haddaan doonayna bakhaarkayga oo 200 oo shay haya aan 200 shay ba soo diiwaan geliyay waxaad u samaysanaysaa ID card marka ID number baa u samaysanaysaa
product kasta ama alaab kaste marka alaab kasta ID numberka u samaysto waxaan sameeyaa si aan u raadiyo isla markiiba hadii la igu raahdo sonkorta maxaa ku yaala sonkorta isla markiiba halkan aan gelinaya ID numberkeegi ka bacdina inta ay taalo soo saaraya marka waxaan sameeynaa formula la yiraahdo VLOOKUP waana waxa kale oo jirta iyadana la yiraahdo HLOOKUP waxay labaduna ku kala duwan yihiin markan kan dhamayno ayaan ku sheegayaa marka waxa tabanaysa qaybtaas ku banaanaato sababtoo ah waxaan doonaynaa inaan gelino ID cardkaas oo kadibna halkaan natiijada siiso marka qaybta waxba lagu ma qorayo laakiin formulada marka isticmaalaysid waad gelinaysaa kabacdi halka waxa tabanaysa equal baad qabanaysaa equal marka qabatid VLOOKUP ku qornata Excel-ka waa formula ku jirta FL marka qortid wuxuu ku soo saarayaa VLOOKUP tab baad qabanaysaa amba bracket baad furaysaa kabacdi amba VLOOKUP ayaa tood ayadoo qoraysaa marka inta qortid waxaad sameynaysaa aad imanaysaa aad inta qortid waxa tagaysaa meesha doonaysid ID cardkaaga marka qoraal la galiyo uu ku soo saaro ID cardka qaybta ID gaan click garanaya marka soo click garaysid qaybtaas ID ku L5 kaas marka soo qortid waxaad oranaysaa comma marka tiraahdo qaybtaas waxaad tagaysaa meesha eegaysid datadeeda la eegayo oo ah table array-ga table la soo tixraacayo oo ku raadinayo marka waxa soo highlight garanaysaa dhammaan inventory-gaagi ID numberkiga ka soo bilaabo ilaa xaga hooseysa 10kiiba saasan waxay la garanayaan ciwaanka magacyada waad ka reebaysaa magacyo kuma diraysid marka qaybta lama highlight garanay magacyadooda waayo hadii verticalka marka la leeyahay waa marka ciwaanada uu ka koreeyo marka horisaanta la leeyahayna h taas way horeysana magacyada ciwaanadu waa in dhinacan markay maraan baa la yiraahdaa saas weeyaan marka saa qoro ka bacdina waxaan qorayaa comma baan qorayaa hadana comma marka intaan qoro waxaan qorayaa imisa column ayaa xagan ku jira column-na waxa la yiraahdaa lead-ka ay ku jiraan qoraalba waa koow ka ID-gaaga iyo inventory kaas oo 2 ah iyo ka quantity 3 iyo ka price-ka iyo ka totalka 5 weeyaan marka 5 column weeyaan baad oranaysaa hadana marka waxa comma hada oranaysaa 5ta column comma false iyo true baa lagu kala qoraa false iyo true baa lagu soo gabagabeeyaa falsigu waxa weeyaan exactly match inay sax tahay ay xisaabtaadi ta ku match karaysan imika ID number marka halka la galiyo barta marka ID number la galiyo exactly match ka soo saar waa falsi marka ayaad ku qoraysaa hadii aad leedahay approximately ta ugu dhow soo saarna true baad ku dhigaysaa marka badana waxa loo qorayaa exactly match baan doonayna inuu toos inoo soo saaro kabacdi waxaad qoraysaa falsi markaad qortid waa exactly match sida halka kugu soo qorayo waa exactly match kabacdi waxaad sameynaysaa enter basinaysaa inta marka sameeysid wuxuu ku soo qorayaa NA or not available ah taas markuu ku soo qoro formulada way ku saxsantay meesha gelisayna way ku saxsantahay kabacdi waxaad sameynaysaa halkaas imika aan sameeynay ayaad raadinaysaa imika waxa lagu yiri bariiska sokorta bariiskaaga imisa kartoon baad haysaa bariiski imika waxba kama haynaba marka bariiska kaas oo rice-kii waxba kama hayno marka rice-ka marka imsaad ka haysaa baa lagu yiri rice-kii ID numberkiisi ila way kala duwan imika magacaanta isku mid ha noqdaan laakiin product-kaaga waa inaan marka soo gelinaysid midna mid noqon oo aad wixii aad haysatay isku mid noqdaan marka ilo laba rice way kala ID 20 ID 5 iyo ID 10 bay kala yihiin haddaan tan geliyo wuxuu soo saarayaa oo yiraahdo rice-kiisu numberka ama bariiska ID numberkiisa ama code-kiisi wuxuu ahaa ama batch numberkiisi wuxuu ahaa tan markaan enter siiyo wuxuu soo saarayaa inta kiisha ka taala waa sida ugu dhaqsaha badnaad u ogaan karaysid ii sheeg maxaad rabtaa baad qoranaysaa sokorti markaan baa inaad table daabacatay ID numberka halka kugu yaalaan oo halka ka eegaysaa waraaq yar ku taala ID numberka amba waa inaad iftisan tahay oo dhexda ka haysid sokorti waxa weeyaan number 1 baa sabab taabanaysa marka xagaas galisa xaga sare xaga 1 ka u taabanaysa marka 1 ka u taabatid ka bacdina inta baasinaysa wuxuu ku siinaya 40 karto 4 karto baa ka yaala sidaas aad oranaysaa oo waxa ku fudud hada doonaysid inaad soo saartid imika rice 5 kaas oo kale rice 5 or number 25 amba bariiski baasindiyo kala ayaa lagu weydiiyay marka 5 baad qabatay waxaad oranaysaa saas wuxuu ku soo saarayaa waxba kama yeelan sababtu wuxuu ugu yeelay rice-ka 5 kiisu waa kaas wax alaabi kama taalo marka halka aad waxba kale wuxuu ku soo saaraya marka rice abaasindahaas uu dhamaaday ayaad ugu qoraysaa marka rice 1 kaas oo kale imika aad ka tiraahid rice 5 kaas oo bariiska noociisa 5 ka way dhamaadeen sidaas weeyaan ma 5 kg hadii ay ahaato marka ID card wuxuu ID number amba batch number amba kolba number aad ku garanaysid alaab walba ku taala ayaad ku gelinaysaa saas uu kugu shaqeynayaa
VLOOKUP waxa la yiraahdo formula la yiraahdo waana aad bay ugu fududeynaysaa marka xogtooda la gelinayo waxaana badanaa la isticmaalaa marka inventory management iyo wax la sameeyo table inventory lagu maamulayo oo aad table-ka la soo baxaysid inventory-ga aad gelinaysid kabacdina aad ogaanaysid wax walba ku yaala halkaas degdega marka taas formulada kale la isticmaalay si aan table-ka ugu noqon inta table-ka maanta oo dhankii la raadinayo ta ku jirta ee product-ga sokorta inta ka taala waxay ku qaadanaysaa waqti badan haddii aan alaab fara badan haysan ba inventory fara badan haysto 200 oo inventory ama 200 inventory hadii aad sidid it's very difficult to see it saasa loo sameeyaa taas waa VLOOKUP waxa jirta iyadoo la yiraahdo HLOOKUP wax kale kaga duwana waxay kaga duwan tahay xagan VLOOKUP marka ciwaankoos qoraalku uu kor ka sareeyo waa vertical koos way taagtaagiin waxa weeyaan vertical feed weeyaan marka waxaad isticmaalaysaa formulada ta VLOOKUP haddii ciwaankaagaas uu taagan yahay sales iyo ID ku qortay tusaale kale ku siin doonaa sales iyo ID ku qortay oo xagana saaxibku ugu qoran tahay waxa la yiraahdaa HLOOKUP ama horizontal lookup baad eegaysaa marka tusaale kale waad soo qaadanaa aan iyadana ku eegino horizontal lookup waa maxay waa markaysa noqoto maxay ku kala duwan ID numberkii saleski waa intii ID-geeni iyo alaabtan iibinaynay numberadooda lacagtada amba intii noo taalay alaabtii hadda halkan waad ka diinaysaa xaq waad ku qori kartaa inventory waad ku dhaqaysaa alaabta inta ku taala ee inventory-ga sales baad ka diin kartaa alaabta inventory waad ka dhigi kartaa inventory baa halka ku diin karaysaa inventory baa ka dhigaysaa saasad inventory ugaarsa ID numberkayga alaabteeni wata inventory-ga nagaada laakiin maxaan isticmaalayna imika horizontal lookup baad isticmaalaysaa marka formulada halka yar dambe ay mad gelinaysaa product-gaaga oo fara badan waxa wana fiican horizontal VLOOKUP oo iyadu sidan ay ku taalaxada badan dadkeenuna sidan ayay wax u qoraan marka saas markaad u qortid marka saas ku fiican marka waxaan isticmaalayna laakiin si aad tusaale baratid maanta aad uga baratid labadaba si aad u xisaabinaysid iyadana halkan xisaabinaysid marka waxaan doonaynaa inaan horizontal marka lookup-ka halka gelino formulada ay nasiiso haddii aan gelino marka 4 waa inay nasiisaa 9 marka halkaas aad gelinaysaa equal ba iyadana oranaysaa h baad oranaysaa iyadana look marka tirahdid tab baad ku boodaysaa inta kale ku bixinay marka inta eegna waxaan oranayaa qaybta raadinaysa doonaysid inaad koodka gelisid meel kasta oo aad gelisid seel kasta amba god kasta oo doonaysid inaad marka halka gelisid ID numberka uu ku soo saarayo marka hore gelinaysa kabacdina comma aad ku xiraysaa kabacdina waxaad raadinaysaa range-ga amba meesha aad doonaysid inaad raadisid product-ka labadooda waad qoraysaa ID card ID-ga iyo amount-ga ama inventory-gana waad highlight garaysaa marka si aad wada highlight garaysid iyadana waxaad qabanaysaa comma kabacdina markaad comma qabatid wuxuu tirinaysaa marka hore waxa la tirinayay maadaama ahayd horizontal dusha laga tirinayay imika maadaama tahay vertical marka hore marka hore vertical ahayd dusha looga tirinayay imikana waa horizontal waa jifto marka waxa weeyaan sidan la tirinay waa 1 iyo 2 ay noqonaysaa marka 2 waa taabanaysaa kabacdina comma oranaysaa labadan column aan leeyahay bad weeyaan oo isku matching gare kabacdina waxaad oranaysaa waa true mar walba waxaad oranaysaa false waa maxay waa exactly match تبين تايد استخدم معي ممكن وقت صح تايد دبت كبعدين انتر باسينس marka inter si haduu na ku soo qoro oo sa na ku soo qoro formulada ku sax marka halkaas uu kaaga baxay inaad qoraal gelisid waa imika waxba kuma jiraan marka waxba laga helayo kornay marka halka waxaad tijaabinaysaa 5 bad gelinaysaa kabacdina inter baasinaysaa 12 ku soo qoray marka 5 waa taas 12 baa ka yaala alaabtaas weeyaan alaabta inventory-ga magacanteedana saasad u hoostood ku qorqor karaysaa amba waxaad ka qoraysaa alaabta magaceeda dhinacaas aad ka qorqor karaysaa oo imika sokor bariis daqiiqa 4 saasad u qoraysaa sokor bariis daqiiqa 4 baas waxa soo dusha sare marka ku qortay dad dusha sare ciwaan doonaysa inaad soo gashidina xagan oo kale saas ku soo gelinaysaa markaas right kaliya ku siinaysaa sart baad oranaysaa dusha sare ku soo geliyay marka halkaas aad kale ka qoran kartaa waxaad ka qoran kartaa sonkor baa ku qoran kartaa oo midba intaad haysid way ka noqonaysaa marka اسمه قرنسا saas weeyaan saasadu iidan tusaalhan inta qaato saasadu ku qorto waa markii saa ku qorto markaas sokortay hadii ID numberkeegu 1 ha marka 1 baan halka gelinaya marka geliyo badan aan dusha la soo maray bartaas oo kala soo maray halkaas oo soo dhiganaysa marka halka formulada soo dhigatay wixii kabacdina halkaas mid gelinaysa inta uu yarfitay kabacdina inta iska socoto amba halkayga abayada soo guujan badanaysa pastada koodkeegu wuxuu ahaa 3 ma soo gelinaysa 40 mid baynu yeelaa pastada badanaysa si degdeg ah ayuu sheegaysaa iyadoo formulooyin iyo lagu maamulay management-gana waan isku day hadii aan xalno in soo diyaarino halkaas ku soo gudbina tutorial-ka maanta ee Excel-ka sida formulooyinka advanced-ka wax lagu xisaabiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.